taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliya Sakiyo Xuseen ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka inuu saaka ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdi Janan oo ku yaala magaalada Muqdisho. taliye ku-xigeenka booliiska waxa ay sheegtay in ciidamada amniga ay ku raajoogaan balse warar aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan xabsiga uu ka baxsaday Cabdi Janan lagu soo xiray maalmo yar ka hor balse arintaasi waxa ay dhalisay habalhayn aad u fara badan inkastoo walaac laga muujiyay. dadka arinkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waxaana uu sheegay in markii hore aan laga warqabin halka uu ku xirnaa, xaaladda uu ku sugnaa iyo sidoo kale ilaalada dadkii ka hayay. waxa uu su'aal ka keenay habalkan ka soo yeeray taliska booliiska Soomaaliya, waxaana uu sheegay in tan loo baahnaa mas'uuliyad gaar iska saarta dowladda Soomaaliya isla markaana ummadda loo sheego xabsiga uu ku xirnaa halka uu ku yaalo inta aan la dhihin uu baxsaday. waxa uu sidoo kale su'aal ka keenay cidda mas'uulka ka ahayd ilaaladiisa, waxaana sidoo kale Axmed Macalin Fiqi uu sheegay in arintani lagu mamarsiinayo in la qaarijiyo wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdi Janan. Cabdi Janan ayaa la qabtay bishii Agoosto 31 sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaana dowladda Soomaaliya ku eedeysay inuu galay dambiyo culus. xarigiisa waxaa cambaariyay maamul goboleedka Jubbaland uu ka tirsan yahay, balse dhinaca kale waxaa xarigiisa soo dhaweeyay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.